هل أتاك حديث موسى مكسو غاري وركي النبي موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى مركو الله أغيري توغي بركيسنا طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى كنيري أتك فرعون وحد قدبيه فقل هل لك إلى أن تزكى oo ku dheh ma rabtaa inaad daahir noqotid وأهديك إلى ربك فتخشى oon alla jidkiisa kugu hanuuniyo oo aadna ka baqdid فأراه الآية الكبرى wuxuuna tusiyey nebi muuse aayad weyn فكذب وعصى wuuse beeniyey oo caasiyey fircawn ثم أدبر يسعى wuuna jeedsaday isagoo xumaan la socdaa فحشر فنادى wuxuuna kulmiyey askartii una qayliyey فقال أنا ربكم الأعلى isagoo dhihi waxaan ahay allihiinnii sare فأخذه الله نكال الآخرة والأولى markaasuu alla ciqaabay aakhiro iyo adduunba إن في ذلك لعبرة لمن يخشى arrintaasna waano ayaa ugu sugan ruuxii alla ka baqi nebi muuse wuxuu alla faray in dadkii masar deganaa xaqa uu ugu yeero hase yeeshee fircawn oo xukunka haystay ayaa ka hor joogsaday uguna yeeray inay asaga adeecaan mar hadduu awooddii sare isagu leeyahay ugu dambayntiisa fircawn iyo colkiisa waa la halaagay waxaana dhulkii u haray nebi muuse iyo intii la jirtay ee xaqa rumaysay taasina waxay ku tusin in xumaantu tegi xaquna hari أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها ma idinkaa daran abuuridda mase samada allah dhisay korna yeelay jurmigeeda oo ekeeyey وأغطش ليلها وأخرج ضحاها allah samada habeenkeeda madoobeeyey maalinteedana soo bixiyey yacni ifiyey والأرض بعد ذلك دحاها dhulkana markaas kadib fidiyey haahoo alle samada iyo dhulku ayuu hor abuuray hase yeeshee alle markuu samada ekeeyey dabadeed ayuu dhulka fidiyey أخرج منها ماءها ومرعاها alle waa midka dhulka biyihiisa iyo daaqiisa soo bixiyey والجبال أرساها buurahana sugay متاعا لكم ولأنعامكم si aad idinka iyo xoolihiinna ugu nacfidaan فإذا جاءت الطامة الكبرى markay timaado musiibadii weynayd waa qiyaamade يوم يتذكر الإنسان ما سعى maalintaas dadku way xasuusan waxay faleen وبرزت الجحيم لمن يرى naarta jaxiimana waxaa loo muujin ruuxii arki فأما من طغى ruuxii si xadgudbaa وآثر الحياة الدنيا nolosha adduunyana doortaa فإن الجحيم هي المأوى wuxuu ku dheelman naarta jaxiimo وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ruuxiisa ka yaaba la kulanka alle naftana ka reeba hawada xun
فإن الجنة هي المأوى وحو أدلمن جنة يسألونك عن الساعة أيان مرساها وحيكو ويدين ساعة قيامة مركي سجنان فيما أنت من ذكراها محاكو أغيسيي وقت غيظا إلى ربك منتهاها الله أنبوكو نمان أغانشهدو إنما أنت منذر من يخشاها أذيقنا وحاتهيئون ودقها روحي كيابي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها waxay la mid noqon maalintay arkaan qiyaamada iyagoo nagaanin galab iyo barqin mooye oo adduunyadii ayaa la noqon inay ku nagaadeen galab iyo barqin isagoo alle u nimceeyey yay dadku haddana xaqa beeninayaan iyo qiyaamadii markayse dhabtu timaado alle la hor yimaado waxaa loo kala aadi laba wado jaxiimo iyo janno qiyaamaduna markay dhici alle unbaa u cilmi leh mase aha wax la dadajisto waxaase wax tari in wanaagga la horumarsado raaxada adduun iyo ku raagiddiisu waa wax yar wuxuu yidhi qataada adduunyadu way la yaraan dadku markay aakhiro arkaan